dooro dadka u dabaaldega waxqabadkaaga haddii ay yihiin xitaa waxqabad yaryar siday ugu dabaaldegi lahaayeen waxqabadkooda. waaw maanta waxaad arkaysaa qof guulahaaga ku faraxsan qof aan guulahaaga ku faraxsanayn. waxaad samaysay wax aan waxba ahayn. tusaale allahu mustacaan maanta waxaad samaysay tusaalaan soo qaadanaynaa waxaad barataa graphic design-ka inaad barato aad qof fiican oo active ku noqoto sida UK kale waad jeceshahay. waxaad samaysay looga yar waxaadna ku samaysay telefoonkaaga waa soo habaysay status-kaaga soo dhigtay. waxaad aragtay qof wuxuu ku soo galayaa commentiga ama reply-ga wuxuu ku leeyahay waaw wallahi waa filay inaa waxaan sameynaysid waa looga aad iyo aad u qurux badan horumarkaaga halkaan ka sii wad waxbarashadaada ziyaadi. waxaad leedahay looga yar leeyahay samaysay qofka muxuu saa ugu dabaaldegaya. waa qofka ku haboon noloshaada inaad qof dhow ka dhigato. waa qof ku haboon noloshaada inaad saaxiib ka dhigato. waxaan ula jeedaa marka dooro dadka u dabaaldega waxqabadkaaga haddii aysan ahayn xitaa waxqabad weyn siday ugu dabaaldegi lahayn waxqabadkooda. waa dad aad iyo aad u qalbi furan waxaana ku wanaagsan in saaxiibo dhow laga dhigto. midaasaa tusaale usoo qaadanaynaa. okay dadna waxaa jiraba markii aad wax samayso wayna kaani jebinayaan waxqabadkaaga sidoo kalena farxad kuma siiyaanba. markii aad wax samaysato ama aad guula ama fikir ola timaado waxaa lagu leeyahay allah adigu waalan tahay yaa maxaa yaa ku dhalay team cook maa ku dhalay madaxa oo guud ee shirkadda Apple maa ku dhalay maxaa isku dhibay walaalow lacag ma lihid maxaa waxaan ku gelinay yow iskoolka iska dhiga dhibka naga dhaafo ku leeyahay. marka sida awgeeda dadka mar walba waxqabadkaaga ku farxo haddii aad wax yar samayso xitaa wax weyn ka dhiga ku bombooniya video yar aad edit gareysay isku soo dhajisay meel aad soo dhigtay waaw war waa ka harnaya macnaha kwalitaalka kama wado laakiin waxaan ka wadaa qofka sida mar walba sida gooliga kula hadlo ku dhiirigeliyo qofkaas ayaan ka wadaa qofka wanaagaaga jecel. waxayna ku haboon tahay inaad doorato dadkaas oo kale. dooro dadka aanan ku xukminaynin waqtiyada aad garabka u baahan tahay. waxaan ka wadaa mataqaanaa tusaalaan soo qaadanayna maanta waxaad geysatay fal ama waxaad geysatay qalad yaraa kaa dhacay. qaladka kaa dhacay qofka aanan kugu xukminaynin maanta oo ku dhahay never give up soco waxaan ha u istaagin kiiba hore u soco. mar walba waxa isku dayda inaad sidaan samayso oo ku sacbinaayo ku dhiirigelinayo. dadka ayaa haboon inaad saaxiibo dhow ka dhigato. dadka ayaa haboon inaad noloshaada inta ugu badan waqtigeedana la qaadato. sababtoo ah dadka mar walba qalad yar aad samaysay boont yar kugu raadinayo kuguna xukminayo inta ugu badan nolosha kuma haboona in dad dhow laga dhigo. sababtoo ah negative-kooda ma dhamaado adigoon sameynin xitaa lacalla lagugu xukminaa. haddii lacalla sidaan samayn lahayd ka waran soo khalad maaha ma iska daysid haddaba aa lagu leeyahay. marka sidaa awgeeda dooro dadka aanan ku xukminaynin. mar alaala markii aad isbaranayseen qofkaa waxaa ku jiray saaxib aniga ma jecli mararka qaarkooda waxyaalaha hadalka oo maalayacniga ah in markii aan fariin kuu soo diray fariinteydii aad hadallo foolxun kusoo jawaabto waxyaalaha tusaale adiga wax baad sheegtay waxyaalihii adiga aadan ka helin baad sheegtay. qofkaas markii aad sidaa awgeed aa u sheegtayna wuxuu bilaabay inuu kugu ixtiraamo xuduudahaaga. qof walba xuduud buu leeyahay. haddii aad dhahdo xuduudayga waa midaan iyo midaan iyo midaan ha ii soo dhaafin sidaa awgeed xuduudaha uusan kuu soo dhaafaynin waa dadkaa inaad doorataa. wixii aad necban tahay aad xuduudahaagaad u sheegatay wax walba ay noqdaan whatever wuxuu bilaabay inuu kugu ixtiraamo uusan kuu soo dhaafin. waxaa ku haboon noloshaada inaad dadkaa doorato inaad ka dhigato dad kuugu dhow ama saaxiibo. dooro dadka adiga ku difaaci doona dagaalna u gali doona dartaada. dagaal ah ma ahan laakiin macnaa hadal walba hadda social media naftirkiis ayaaba dagaal noqdayba. waxaa laga yaabaa inaad qof isku yara dhegan tihiin haddii aad khaldan tahay iyo haddii aad saxsan tahayba qofka kuugu raacayo muhiim ma ahan in qaladkaaga lagugu raaco mana fiicna in qaladkaaga garab lagugu siiyo laakiin waqti aysan ku haboonin in qaladkaaga lagu sheego iyo waqti ay ku haboon tahay ayaa jirto. sidaa awgeeda dadka mar walba aad dagaalka ku jirto nolosha ala daala dhacayso dad aad buushgaraynayso adna lagu soo buushgaraynayo dadka mar walba aad garabka ku siiyo ama kula soo heeliyo kula soo safto waa dadka inaad doorataa. so maanta dagaal baa ku jirta qof baa ataagaysa ama qof baa ku soo ataagayo sidaa awgeeda qofka ku difaacayo arrintaa markii ay kaa degtana qaladkaaga kuu sheegayo waa inaad dadkaa doorataa. gabdhaha inta ugu badan da'yarta ah ama wiilasha inta ugu badan da'yarta oo teenagerka ku jiro waa steepka lumiyey. steepkan wuxuu ku leeyahay haddii aad gabar tahay ama haddii aad wiil tahay ood rabtid inaad maanta saaxiib samaysato ama aad rabtid inaad qof u dhow yeelato sidaa awgeeda qofkaa waxaa ku dooranaysaa waa inaad ku doorataa qofkaas qof u fiican caafimaadkaaga maskaxdaada iyo ruuxdaada intaba inuu yahay. tusaale way jiraan dad aan u fiicnayn caafimaadkaaga maskaxdaada iyo ruuxdaada. sideen ku ogaan karaa okay waxaa ku ogaan kartaa tusaalaan soo qaadanaynaa maanta haddii aad u baahan tahay inaad ogaatid qofka u fiican maskaxdaada ruuxdaada iyo caafimaadkaagaba qofkaasi qof kale ma aha. mid ugu horeysa haddii aan kasoo bilaabno caafimaadkaaga wax kale looma soo qaadan karo tusaale aanan ahayn qof haddii aad saaxiib ka dhiganaysid min fadli qof balwad leh ka fogow. hadhihin kuma saameyn karo iskuma badmin goormo oo balwadiisa aan arkaa hadhihin mar alaala qofka markuu balwad leeyahay wuxuu raadiyaa chance badaa kugu soo geliyo. sidaa awgeeda xitaa lacag la'aan baa wax lagugu siiya si aad u barato in adiga soo gadi doono keeni doono maanta waa lagu gadaa bir adiga iibinayo. mid ugu hore caafimaadku waa balwada ka fogow qof balwad leh ama gabar ha ahaato shiishad ha cabto ama wiil ha ahaado qaad ha cuno wax walba ha sameeyo ka fogow. mid labaad oo maskaxdaada wax kale tusaale looma soo qaadan karo way fiican tahay maskaxdaada meelaha ku haboon inaad u jihayso. tusaale qof 24 saac
xumaan ka shaqeeyo ma cuno balwad laakiin wuu kala iibiyaa okay ma isticmaalo balwad laakiin wuxuu aadaa goobo anshax xun sida kalaabiyada Soomaali xitaa way leedahay meel qaar oo lagu niikiin la aado qofka sidaa kugu jiheynayo inaad meelahaas aado kale waa inaad ka digtoonaataa markii laga hadlayo maskaxdaada uma fiicna meelaha doosha xun markii laga hadlayo waxaan u imaanaynaa waxaan soo aragnay caafimaadka iyo maskaxda okay nafsadaada sidee qof binaadan aad saaxiib ka dhiganaysid nafsadaada uu khatar ugu noqon karaa wuxuu khatar ugu noqon karaa maanta haddii aad qof ciidan saaxiib ka dhigata ka war adigoo wax shaqaa ku lahayn way keeni kartaa qof ciidan saaxiib la haddii adiga saaxiib la sii noqoto istiin ciidankii hoos tagaysaa maanta waxa lagu leeyahay inuu soo bixi karo baliis caabi haddii ay gabarta xitaa gabdho ciidan baa jira igboontiga jooga maanta ma soo bixi kara abaay oo ku baryaaya cabahay maxaa ku sameeyaa abaay demeel inta la ka sii baxo xaflad aada rawaay abaayadii wax ii soo qaad waa lagu aksabiri karaa dhibaato meesha ka dhici karto de kuma wanaagana ama qof ciidan saaxiib la sii ah ama qof ciidan ah waa inaad inta iska ilaalisaa inaad saaxiib la noqoto iyo qof walba oo wax xun ku dhex jira insha Allah maanta mawduucan halkaas ku akeen doona istibiyadaas aan ku soo akeen doona waxyaalaha ugu muhiimsan aad ku xulan karto inaad saaxiib yeelato soo marka waa ka insha Allah maanta halkaas aan ku akeenayna mawduucana maanta ta ka kulmeen muuqaalka waxa idin leeyahay insha Allah see you next video bye.